نبي محمد عليه الصلاة والسلام دقن كيسا الدنيا وحو ugu jeclaa waxa uu bixiyo oo sadaqaysto bal wuxuu yiri wa kana sururuhu wa farahuhu bima yu'tihi a'zam min sururi al-akhidh bima ya'khudhu nabigu alayhi salatu wassalam waxa uu bixinayo qofka uu siinayo sida nabigu ugu farxayo inuu bixiyo wuxuu ka weynin badnaa midka qaadanaya farxadda uu ka farxayo waxa ka weyn kan bixinayo nabiga alayhi salatu wassalam adiga waxa laga yaabaa waxba bixinaysa laakiin qalbigaagu aad ugu faraxsana waa ka soo jaraysa xoogaa waa dhibsanaysa waa bixinaysa laakiin nabigu alayhi salatu wassalam qofka miskiinka ah oo wax la siinayo sidoo u farxayo si ka badan buu u farxahay inuu wax sadaqaystay inuu wax la baxay nabigu si ka badan buu ugu farxay wuxuuna ahaa dadka midka ugu deeqsisan yamiinuhu kariixil mursala ayir midigta nabigu siday wax u bixinayso waxa moodaa dabayl ordayso oo kale oo la soo diray siday wax u ordayso ayaa midigta nabigu aynan u istaagahay bal wuxuu ahaa nabiga alayhi salatu wassalam ida urida lahu muhtaaj qof baahan hadii loo bandhigo oo xaaladiisa loo sheego atharahu ala naftiisa waxay u baahan ka hormarinahay تارة بطعامي وتارة باللباس عنادي سو مر بحينها أو عن لها أصلا أبا هنا يجوجينها يسينها مسكين مر وحسينها يدرك وحيرنا هي بنتو قاطو كك أسوي جوجي أيو أصلا سينها مسكين كأسينها مركز النبي وحو أهابو يأمر بالصدقة ويحث عليها ويدعو إليها بحاله وقوله نبي صدقه أمرها هي دت كان كبرنا هي أسقون فعل أهان السمين هي قول كيسة يفعل كيسبة صدق الصعداء هذا مركز سووح النقدي أشرح الخلق صدرا عند الله دتك متك وقلبي واسع سن أو قلبي فرحات بدن أو دجن أي نقطة وأطيبهم نفسه نفأهان مركز اللي هذا متك وطيب صنب نقطة وأنعمهم قلبي أهان مركز اللي هذا متك وقولني معبدا بالنقطة محايا لي بيري من القيم صدقة إيه فعلك خيرات كلا سمايو إيه صدقة أو بدن أو لبحيو قلبي جيد كيسان والولك والبهارك يمرك تيقفك كسرتها أموري صار بإلهي أفضلية مركز سوي يا قف بشاشة أو فرح سنة ما لنت أوح لب حديد إيه ما لنت هذا لبحين اسكوكو كامد معها قلبي جاء ما لنت أوح لب حديد أو لب حديد فرحت إيه النمعة إيه واسع نماء يكدر يميسه وهذا تهي قف صدقة قيمها علاده إلهي أكتسر رميسون حديث كان كلفين الإمام البخاري مسلم أيوريين والنبي النبي عليه الصلاة والسلام ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار أنا يكون فرحة هيو إنا فرح قليل ميس بورت أحد الذهب إلا يسيه وأن لا يهي صدح مع الماضنا أي سوق قدبان وأكتيد هل دينار وكم دي ويالو ماكو فرحة هي إلا دينار أرصده لدين عليه مركا لغا ريب الدينار أن ريبي وأن قلت لك علي دين اللي يقول لي هي أما قف كلام مسلم اللي يقول لي أنا أقبح يوه كاس وان ريبي كرا صدح بري وقاري كرا يكبضا لكن بورت أحد الذهب هدي عنيقا إيسوغناتو كما فرحة هيو صدح حمين قدهد إني أكتيد كو باقي نغط وابحوني ساسوها النبي عليه الصلاة والسلام وحا النبي قال له ويدي أي الصدقة أعظم صدق الله بحياته أقوين بدن مده النبي عليه الصلاة والسلام مالك انت قارية ترسيقسو ماذا تلمانك له بحش أنت صدق وأنت صحيح شحيح حلقة آد عافي ما تهي حولها أنا آد كب خيليسد وحي آد بحسد باقو خير بدن حلقة عافي ما تهي حولها أنا وحويان آد بخيل لما كدريبيسد نفتعب غني إنما آد رجينيسد فخري أنا آد كعب سنيسد
ayaa ugu fadli badan inaad xoolaha marka aad bixisid markaasaa nebigu dardaarmo wixii walaa tumhil ha u kaadin oo sadaqadii aad la bixi lahayd berri iyo saa dambe iyo saakuun iyo bilaha iyo sanawaadka dambe ha ugu kaadin xataa idaa balagat ilxulquum ilaa ay naftu halkaa timaaddo saa ugu kaadinaysid halkaa markay timaaddo oo tala faraha ay ka baxdana aad tidhaahdid qulta lifulaanin kada walifulaanin kada walifulaanin kada dhagaysta carruurtaydiyey maalkii waan qaybiyey hebel intaasuu leeyahay hebel intaasuu leeyahay intaasuu hebel leeyahay hebel intaasuu leeyahay adiguna aad tidhaahdid ilaa tala inay faraha ka baxday baa aragta oo aad socotid markaasaa nebigu wuxuu yidhi alaa waqad kaana lifulaan oo ray hurdada ka kac oo baraarug waa hurdaysaadee maalkan aad qaybinaysid dad baa iskale wuuna u sugnaaday wax adiga wax lagaa weydiinaya maaha qayb ilaahay u qaybiyey hadhowta ku qaadanayaan dhaxlanayaan ee taladii adiga waa ku seegtay saasay kugu seegtay waa u badan yihiin aabbayaal badan oo wax haya oo ilaahay wax siiyey inaynan geesinimo badan u yeelan weli inay wax badan ay la baxaan ee ay la sugayaan xaalado dambe xaaladii dambe si loola sugahayay ayaa maanta dambe waxaa la leeyahay hebel waa tegey hebel waa tegey hebel waa tegey hebel waa tegey sikadiisuu ku dhintay wadnaha istaagay qarax buu ku dhintay si kalu waa dhaawacmay xabad baa dishay waa maqlaysaa asagii oo naftiisa la jeclaa inuu wax dardaarmo oo khayr la baxo oo masaajid dhisto oo madaaris dhiso oo masaakiin badan uu wax u qabto naftiisa la jeclaa ayuu wuxuu ku dhiiran waayey intaas oo sano geesinimo ah waxaa nafta uu la jecel yahay hal mar inuu go'aan ka gaaro oo kaydka aakhira u hormarsado xagga u dirsado ilaa waxaan asagay xagga uga horeeyaan cidina ka qaadan maysa say kayd u tahay markuu ku dhiiran waayey ayaa geeridii ay ku soo xaadirtay xilligaasna hadduu yidhaahdo hebel intaanu leeyahay xoolaha loogama baahna ilaahay baa qaybiyey subxaanahu wa tacaala